saddex iyo soddonkaa sannadood kuwii aynu inagu ka goosannay oo aynu isfahmi weynay oo ina xasuuqay oo ahaa koonfur ayaa leh annagaa leh dalka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allaahuma waffiqnaa limaa tuxibu watardaa yaa allah waxaan salaamayaa guddida nabadgelyada oo ugu horreeyo guddoomiyaha gobolka waxaan salaamayaa taliyaha qaybta booliiska waxaan salaamayaa taliyaha ciidanka badda waxaan salaamayaa taliyaha ciidanka asluubta waxaan salaamayaa taliyayaal kale waxaan salaamayaa dhammaan madaxda hay-adaha dawladda waxaan salaamayaa shacbiga quruxda badan ee halka jooga waxaan salaamayaa madax dhaqameedka waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ummaddan sharafta leh ee jamhuuriyadda somalilan waxaan u sheegaynaa waxay ogyihiin dalka jamhuuriyadda somalilan wuxuu leeyahay sharci wuxuu leeyahay dastuur waxaan jeclahay inaad dhegaysataan baan jeclahay waxaan salaamayaa dhammaan golayaasha qaranka jamhuuriyadda somalilan oo madaxweynuhu koobkaya waxaan idiin sheegaynaa isagoo dalku sharcigaa leh xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ama xukuumad kasta oo dalka ka samaysanta waxay ku fadhidaa sharci madaxweynuhu iyo xukuumadduba way geli karaan inay ummad la galaan heshiis ama sharci ama sidii marka ay ka maarmi waayaan oo ay u arkaan danta dalka innagu waxay marayaan waxaynu dariiqa sharciya madaxweynuhu xaq buu leeyahay inuu cid la galo heshiis dastuurka u ogol sharciga dalka u ogol markaan taa ka soo gudbo sharci kasta oo xukuumaddu gasho waxay xaq u leeyihiin oo waajiba inay mariyaan hay-adaha sharciga oo baarlamaanku kow ka yahay sida inoo sheegay markuu soo noqday madaxweynaha dalku wuxuu yidhi heshiiskan waan gallay sharcigana waan marinaynaa ciddii a u doorateen dalka oo loo doortay oo xulkii u saarayay sida oo kale xisbiyada qaranku way hadleen iyaguna waxay yidhaahdeen sidii madaxweynuhu sheegay waa in la geeyo hay-adaha sharciga ee arrintu khusayso marka innagu waxaynu sugaynaa mar walba oo aynu ogol lahay sidii dalka dantiisa loo garto madaxda qaranku u garato oo madaxda golayaashu ay u gartaan sow sax maaha way isku raaceen mucaarad iyo maxaafidba waxaa la ysla gartay in la mariyo hay-adaha sharciga innaguna shacbigii baynu nahay ama shaqaalihii baynu nahay dalka waa inaynu sidaa la ysla gartay taayiiddeeda ayaynu u soo baxnay oo halka u nimi cid kale oo aan jamhuuriyadda somalilan ahayn oo dibadda ka hadlaysa ama ka hadlaysa dhul kale inama khuseeyaan danteenna innagaa leh dalkeennana innagaa leh sidaa waa inaynu kalsooni buuxda ku qabnaa innaguna waa inaynu iska daynaa guuxa iyo maxaa la yidhi iyo say xaaladu tahay barlamaan baynu dooranay labiyo siddeetanka dee waxaynuu dooranay waa hay-adihii sharciga weyn iyagu hadday diidayaan iyo hadday yeelayaan iyagaynu sugaynaa iyagaana xilku saaraya sidaa darteed waa inaynu inagu mabsuud ku ahaano kuna ogol lahay kuna sugno
تأمر كان كسر لابتو وحمغليسين ضد بدن عن إمكا دلكين نشريتان كيسا وقولين صدق هي صدق سنوات بين مرينا صدق هي صدق كاسنوات هو إنه كقوسني وإنه إسفهم ويني وإنه حسوقي وأهات كونفور أيالي أنا قاعد ذلك مسامين يلينا ترى إنك قودا مرولبا إنك عليه تلدينا إنك يو حكومتنا يقولياشين آدمان بي سلامية سيدا قول روح بغن أو تمادين آدمان بي سلامية وعن كلو هردع يديكو سي شيغيا سنة بينك صوبحنا سنة كاسي وحوها سنة هول بدن أيوها سنة إنك إن فوتر لك علينا كي ورا صدق هي لباتن بوها كانوا أفري لباتن إلهي وحين كبرينا كاكتجي هراتيديسا إيوك سوس وهذا هرديديسا با إنه كنا بتقلوا هديان قضية دقمة هاي ولا دقان كدقمة عرقاوه وهذه شيء إن بدأ محكم غليسين أيام عكر دولة هو سه وحوجا أما سقب خمسة أما حسابه بدن صوب بندقه دينه ولا بوليه والله يا باي ولا عشرة ولا هذا كلنا ما يهورنا يعني حاجة حالكم شوية وهذه يكون بشهرين يا إن أنا كنت ري ويجا كانوا قدام بيا أردن حساب حكي دقمة وانو دميني سي شرعي وها وانو قديني قدوميا قبلك يو سنة داري ما كذا لبا واحد دينا قلنا لك كل هي وانو بريتو لايدين خمسة ما تشران وعن صوبا نجي دورنا وحي آنو غبني iyo waxaanu qaban doono sanadkan insha Allah ta'ala bartilmaameedka iyaguna annaga waxa weeye ilaahay annagoo la kaashanayna waa nabadgelyo iyo horumar intaanu qabanayna waa ogtiin inta soo socdana waa soo wadnaa haddii alla yahay waxaanu codsanayna iyadoo aanu soo wadno dhismayaal iyadoo aanu soo wadno laamiyo waxaanu codsanaynaa inta idinka idin khusaysa waa qurxinta magaalada waa dhirbeeridda oo weliba dhirtii annagu aanu keenayno in badan baanu idiin sheegnay dhirtii waa ka dhagalaadiyiin maxay noo ballana laamiyada ma iska daynaa shaqada ma iska daynaa ma joojinaa haddii aad dhirta beeri weydaan magaalada qurxin weydaan annaguna waa joojinaynaa qof walba waxaad u diyaar garowdaa inaynu maalin qabsanno oo aad geed beerto hadda intii ugu fududayd baad igu soo beegantay haddii alla idmo waxaanu rajaynaynaa xafladda inoo xigta ee aynu qabsanno in qof waliba geed beeri doono oo magaalada qurxin doono annaguna inta nagu beegan waa ballan qaadaynaa inaanu qabanno sawsaa ma aha saasaa inoo ballana ilaahay baynu la kaashanaynaa barbarkay ka baxdaa waaba kayla qaleen wasalaamu calaykum